maray qaabka u bilaw ganacsiga iyo challenge-ka iyo waxyaabuhu soo mareen Mama Nasro soo dhawo barnaamijka mar labaad waxaan jeclaan lahayn inaad nooga sheekaysid brief Mama Nasro weheliyayaa waay بسم الله الرحمن الرحيم محمد waxaan kaaga mahad celinaa fursadan ay siisay inaan kala soo qayb galo barnaamijkan waxa kale oo u mahad celinaa dhammaan inta ka soo qayb gashay waxaan rajeynaa barnaamijkan iyo barnaamijyo lamid ah in la sii wadi doono si aan u kala faa'iideysano waa mahadsantiin haddaan su'aashaada u soo noqdo magacayga waa Nasro Weheliye Maalin waxaan ku dhashay Xamar waxaan ku koray Xamar waxaan wax ku bartay Xamar dugsiga sare ee Banaadir aan ka baxay oo meesha hadda isbitaalka Turkiga laga dhigay oo runtii aan aad iyo aad uga xumaaday in iskool loo bedelo isbitaal waxaan helay fursad inaan wadanka dibadiisa jaamacad u aado waxaan waxbarashadii jaamacadda ku soo qaatay wadanka Mareykanka waxaan wadanka ku soo noqday dhamaadkii 88 anoo wato shahaado business administration ah waxaan helay jaanis oo dadka ila mid ay sahelin waayo familkayga wuxuu ahaa reerkayga reer ganacsi ku jira waqti dheer ganacsiyo kala duwan oo badan haystay marka walaalkay Allah u naxariistay Xaashi Weliye oo ahaa nin business weyn ah ayaan shaqadiisii dhinac uga biiray waxaan ahaa directorka xisaabaadka ee shirkadda Xaashi shirkadda waxay ahayd Nissan ayaga dealer u ahaa export import warshado ganacsi badan oo kala duwan markaas aan soo noqday aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan wadankayga ku soo noqdo anoo shaqadii wado oo ku faraxsan dagaaladii sokeeye dhaceen dagaalkii markuu dhacayna aniga ma bixin wali sidii aan u joogaa Mama Nasro soo socod hadda waxaa ka tahay CEO Director Nationalink Telecom Nationalink Telecom goormay aasaasteen sidee ku bilowdeen ugu bilowday oo shaqada ugu horeysay Nationalink Telecom intaanan bilaabin ka hor anagoo group dhalinyaro ah oo Soomaali ah business kala bilownay businesskaas wuxuu ahaa diyaaradda waxaa la dhihi jiray Kilimanjaro anagoo diyaaradii wadno waxaa noo soo baxday in ay loo baahan yahay in fursadna ay ka jirto dhinaca communication-ka groupkeena isu tagay waxaan awoodnay iyo wixii aan isku darnay waxaan go'aansanay inaan shaqada bilowno markaan go'aankaas qaadanayna waxay ahayd September 1997 markaan go'aansanay wadanka waxaa ka jira laba shirkadood oo Soomaali ah iyo shirkad Maleeshiyaan ah soo waxaan noqonay shirkadii afaraad waxay noo suurtowday January 1998 inaan bilowno oo hawada u dayno Nationalink that time mobile ma jirin shirkadaha dhan waxay haysteen wuxuu ahaa landline annagana shaqadan bilowno waxay ahayd landline see ahayd shirkadda dumarka kaliya ku jira ahayd mise dumar kale ku jira groupkiina oo bilowdeen kow Kilimanjaro ku bilowdeen kadibna Nation asaasay groupka oo aasaasiyaasha iyo managementiga labada shirkadba aniga kaliya gabar ka ahaa see ahayd dadka badisa ula socono wadan muslim ah dadku waxay aaminsan yihiin dumarka inaysan ka qayb qaadan karin ganacsiga ama aysan ka noqon karin xil weyn ka noqon karin founders ka mid ahaan ama directors see ahayd adiga ahaan Mama Nasro oo ka la shaqaynaysay Muslim men dominated environment ahayd see ahayd challenge-ka la kulantay kusoo caamalahay aniga horta aad ayaa u nasiib badnaa because number 1 waxaan ku jiray aasaasiyaasha number 2 managementigi soo dhib weyn teamka aan shaqada la bilaabana waxay ahaayeen team aan isfahamsanahay aqbalayna markii hore inaan shaqada isla bilowno weligoodna kama dareemin imana tusin dhib dhinacaas inaan naag ahay wayba ku faraxsanayeen shaqada mooraaba aniga la delegeed gareyn jiray anigana I was willing inaan more sameeyo laakiin waxaa jiray problem dhinaca kale oo society-ga ka imaanayay waa ognahay annaga dhaqankeena iyo culture-keena gabdhaha iskool waa loo diraa mujtamacu waa aqbalsan yahay gabdhaha inay shaqeeyaan laakiin problemka ugu weyn waxa waaye ma u baran mana ogolo inay gabar wax lead gareydo ama ay top company weyn ka noqoto marka teamkayga dhib kuma qabin laakiin waxa dhib ka arkayay
dadka outside-ka ah oo qaarkood ilahaa way aa shaqadan u qabanay iyo ma ogid miyaa inaad naag tahay iyo meel ma ka gaari kartid iyo marka aniga sanisaan awalna family business ku soo koray reerkeennana ay igu barbaariyeen inaan waxaan raba noqon karo meeshaan rabana gaari karo dhib uma arkayn warkooda ma ii dhibi jirin taargetkayga wuxuu ahaa shaqadaan bilaabay inaan ka miro dhaliyo waana ka miro dhaliyo sanoo sheegtay 1997 ablawdan September hawadana waxaa gasheen 1998 waxaan la soconaa waqtigaas waddanka Soomaaliya special Muqdisho dagaalada ka jira see nigu ahayd easy inaa ku howlgashin xamar gudihiisa iyo maxaa ahayn caqabadaha kala kulantay waqtigaas asaaska ganacsiga waqtigaas aan shaqada bilaabayna waqti aad u dhib badan u ahaa dhibka ugu weyn oo aan la kulannana wuxuu ahaa security-ga shaqada la qabanayana waxay ahayd landline marka laga shaqeynana waa in dhulka cable la geliyo ka bacdi fiilo la jiido reerkiisaas taleefanka loogu geeyo marka maalin walba waxaan la kulmaynay caqabado cable-kii oo la jiidayo qof soo istaaga qorayuu soo qaadana wuxuu leeyahay cable-ka lama jiidi karo shirkaduna markay shaqada bilaabayday security aad iyo aad u badan aan qoranay si dhibaatooyinkaas aysan nooga hor imaan markuu problemkaas yimaado laba go'aanaan noo yaalla qofka in la dilo oo la iska horwareejiyo iyo inuu wuxuu rabo la siiyo marka sanis annaga aan rabnay inaan waddanka dib u dhiskiisa ka qayb qaadano dadka aan horumar tusno go'aanka waxaan qaadana qofku wuxuu rabo inaan siino oo hore u socono markaasaa waxaa imaanayday 2 kilomitir inaa ilaa 10 qof lacaga macquulahan ku siiso security-ga aan qoranaa waxay nagula diriri jireen maxaa noo qorateen haddaan iska celi karin nin qor haysta waan ka diidnay waxaan ku guulaysanay dhibkaasoo jiro inaan shaqadii qabanno wadno waxyaabo badanaa jira waa garan kartaa waddankiioo alaabta sida lagu soo keena ay adag tahay oo maraakiibta meelo dhow moog iyo meelo fogfog ay ka imaan karin qaladka communicationkana America iyo waxaa laga keenaa Europe waddankiioo sharci ka jirin dhibaatooyin badanaa jiray but at same time sanisaan go'aansanay shaqada inaan qabanno wax walboo naga hor yimaad intaan u dhabar adeegnay ay shaqadii noo suurta gashay wax kasta oo rabtid inaad qabato waa qaban kartaa haddaa go'aansato oo timeka iyo offertiga gelido ilaahayna tala saarato since nationlink la asaasay ilaa hadda maxaa achievements gaartay oo goal waxaa ogaa qof ganacsi bilaawaya goals leeyahay goalskiina koo maxaa ka mid ahaa ama aimkiina maxaa ka mid ahaa aimkeena waxaa ka mid ahaa inaan bulshada Soomaaliyeed u provide garayno service fiican oo qiimo jaban ah hadda waxaa ogtihiin Soomaaliya inay meelaha adduunka ugu raqiisan communication ka tahay waxaa kaloo achieve garaynay Muqdisho ka bilownay taleefanka the whole Soomaaliya dhan Somaliland Puntland everywhere inaan joogno waxaan kaloo achieve garaynay 2,000 oo qof dadka badan inaan shaqo u abuurnay oo ay ka shaqeeyaan shirkadda telecommunicationka nationlink dadka badan waxaan jeclahay dad qaar oo civil society oo badan oo women so nationlink waxaa la soconaa women-kan ugu badan yihiin out of that 2,000 oo qof ku shaqeeya how many women are 10% women waxaana keenaya shaqada communication way ka duwan tahay shaqadaha kale sababtoo most of the people waxay ka shaqeynayaan cable tower la koraa machine laga shaqeynaa godaa la qodaa waa security waxaan ku dadaalnay sanadka ani company-ga ku jiro waa company-ga kaliya ee gabdha ka shaqeeyaan waddanka Soomaaliya inay gabdhuhu noqdaan priority-ga waxaa markii ugu horeeyna ku bilownay gabdhaha ka soo baxa jaamacadaha markaas waxaa jiray jaamacadda Muqdisho iyo Siimad inaan intaan warqad u qorno aan dhahan gabdhaha soo graduate gareeyo dhan hanoola soo gudbiyo oo aan automatic qaadan jirnay waxaan qabnaa gabdha xisaabada gabdha IT gabdha secretarial gabdha cashier shaqo kasta oo gabar qaban karta gabar aan u qornaa waxaa kaloo company-ga teamka aniga ila shaqeeya ay ku farxeen oo u soo baxday gabdhuhu inay ka mas'uulsan yihiin wiilasha ayagoo og opportunity-ga la siiyay ay more time waxay geliyaan shaqadii lagu ogaa inay ka soo baxaan shirkadda close waxay hadda jirtaa 20 years ma dhicin gabar waxaday ama gabar lagu ruqsiyay qalad ay gashay
meesha every week wiil lagu ruqsaday. wax yar ma noogu sheegi kartaa planska futureka nation leedahay inaad gaartiin under managementkaaga? nation barnaamijyo badan ay leedahay. waxaan ugu soo hormarinaa, waxaan rabnaa inaan Soomaaliya meel kasta serviceka asoo nooca ugu fiican qof kastoo Soomaaliyeed oo ku haysto qiimo raqiis ah. targetkeena waxa way technology-gu isbeddelay, inaan technology-ga la socono. targetkeena waxa way more people inaan shaqo siino. targetkeena waxa way inaan ka qayb qaadano dib u dhiska oo haddaba aan ka qayb qaadano. tusaale annaga waxaan isku daynaa inaan dadka dhaqan celino. dadka askarta ahaa waxaan siinaa qofku markuu dhowr sano la joogo training, waxaan ka dhignaa technician. cable la baraa, cable-ka ninka ku fiicnaada part time school ee shirkadda u dirtaa. markuu wax soo barto shaqadii kale uu qaban karaa qabataa. nation link waa meesha aad ka heli karto qof markii hore security ku soo galay oo maanta xarun ay ka shaqayso 100 people manager u ah. inaan shaqadaas sii wadnaa rabnaa. saalo socono dad badanaa soo noqonayo waddanka. aniga waan ka mid ahay dad soo noqdo business bilaabo. maxaa talo noo haysaa? iska easy ma aha in xamar la iska yimaado oo business la iska bilaabo. advice-ka anoo haysid dadka soo noqonaya business bilaawaya ama dadka waddanka joogo business bilaawaya ama dumarka oo business bilaawaya, maxaa advice siin lahayd? waxaan advice siinaa Soomaaliya opportunities badanaa jiro. business qof kasta oo bilaabana wuu bilaabi karaa. waxa kaliya u baahan yahay inuu balaan sameeyo, inuu effort geliyo, inuu waqti geliyo, in la iskaalmeeyo, in group la iskugu xirmo. horaa waxaa loo yiri far kaliya fool ma dhaqdo. haddii qofka kaligiis uu rabo inuu shaqo kaligiisa bilaabo, waa laga yaabaa inay u shaqayso oo ku noolaan karo. laakiin waxaan advice gareynaa in group inta la isugu tago company la sameeyo, warshado la sameeyo waxyaabo badan oo waxaa jira Soomaaliya markii jirta la sameyn jiray oo annaga beeraheena wixii ka soo baxo inta production lagu sameeyo dibadda loo dhoofiyo. oo waxaa hidihii dhaqanka wixii laga sameyn jiray gabdhaha kale intay organization iyo gabdhaha kale u furaan business not NGO la sameeyo. businesska waxaan leeyahay cabsanina, waa qaban kartiin, waa ka miro dhalin kartiin. waddankeena security-gu dhib kastoo qabo, shaqo way socotaa, nolol way jirtaa. sida oo wabeejadu qorayaanna maaha, meel walba oo adduunka ka mid ah problem ugu jira. haddaa maanta America tagto oo dhageysatid newska localka one day joog ma ku qabanayso. qofaa qof dilay, guriga holcay, kana dhacay. marka waxa waaye annaga inaan intaa isku tagno qaybna ka qaadano dib u dhisida qayb waxaa ka qaadana qof kastoo naga mid ah hadduu intuu shaqo create gareeyo shaqadii oo dad u qoro. laakiin haddaa intaan meel fariisano maanta dhan aan dhahno aa la yiri wax ay noo sameynay ma jirto. waa idinka waxa waaye mustaqbalka beriyaa tihiin, dadkina bedeli lahaa tihiin. waxaa laydinka rabaa inaad si geesinimo leh aad shaqo u abuurtaan. annagana waxaan diyaar u nahay aniga iyo tiimka ila mida iyo tiimka ila shaqayba inaan garab idin siino, inaan idin tusaaleyno, inaan idin garab qabno. gabdhaha markaa u soo noqdo waxaan rabaa inaan u sheego gabdhaha waa xoog muhiim ah. Soomaaliya markuu dagaalka dhacay waxa wax qabtay oo waddanka badbaadiyay waa gabdhaha. waxa bread winner ka ah waa gabdhaha. at same time ayagii cabsana. aniga erayga feminist waa ka soo horjeedaa because wax jira ma aha. gabdhaha hadday rabaan inay wax qabsadaan qof hor istaagi karta male. annaga culture-keena iyo dhaqankeena uu ogolyahay. waxaan gabdhaha kula talinaa markay dukaan aadaan gabadha dukaanka joogta inay wax ka gataan. markay service qaadanayaan meesha gabar ay ka shaqeeyeen inay service ka qaataan, inay ayaga isku tagaan, inay isgarabsadaan, inay kala tala qaataan. waxa arkay hadda hotel ama shirkad yar ama dukaan ama NGO ay naag maamusho oo hal gabar ama eedo u tahay ama habar yar u tahay ka shaqeyso. goormay gabdhii waxay leeyihiin hadda annaga gabdhii xaqirno. aniga ma isfaaninayo, laakiin waxaan rabaa inay ugu dayataan oo gabdhaha jaanis siisaan. gabdhaha hadday intay isku yimaadaan ay tashtaan, ma u baahna inay dawlad baryaan, inay qof baryaan iyo 30% aan naga maqan. waxaas ma jiraan. annaga tashano, annaga wax qabsano. company hala aas ay gabdho leeyihiin ee shaqada dhan inta gabdho loo dhiibo wiilasha aan cleaner ka dhigna say naga dhigaan. waxaan rajaynayaa inaan arko noloshayda company saas diyaarana u ahay.